wafdi uu hogaaminayay wasiirkii hore wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac oo dhawaan ku biiray xusbiga mucaaradka ee wadani isla markaasina ku sugnaa xarunta magaalada gobolka Sanaag ee Ceergabo ayaa booqday deegaanada koonfur bari ee gobolka Sanaag ee Ardaha dib qarax fiqi fuliye iyo Urbogays waxaana wafdigu dhammaanba deegaanadaasi kala kulmeen soo dhaweyn aad u heersareysa way ku qaabilayeen dadka deegaanadaasi iyagoo muujinaya dadka deegaanadaasi cudud iyo taageerada ay u hayaan xusbiga mucaaradka ee wadani wafdigu deegaano kasta ay tagaana ku soo dhaweynayeen taageerayaal taabacsan xusbiga mucaaradka waddan isla markaasina ka soo digarogtay xusbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmiye waxaana hadalladii soo dhaweynta deegaanadaasi kamid ahaa waxa u daliila labada dhaan ee waaweyn ee laga qodayo kulaaliyo fuqufliye Soomaaliland in lagu tijaabiyo baa loo soo saaray waxa boobay oo halka ku soo qasbay waa Baasha Cali Jaamac baashe waxa weeyaan waa nin isagu de ruga cadaaya oo shaqayn jiray waxa weeyaan waa ninkii isbaray Maxamuud Garaad iyo Soomaaliland isku xidhay Soomaaliland oo kulmiya waxa weeyaan dhayo nasiib male markuu isku xidhay bay iriday maanta Maxamuud Garaad ka farabax wuxuu ku wareegay wadani annagu Soomaaliland aanu kala xidhanahay waxa isku xidhay wasiirka Baasha Cali Jaamac shaqada dhan baan wayna maanta run baan wayna war wadani miin ma wadani miin run baan sheegaynaa maanta run baan sheegaynaa meeshu ku qoona Baasha Cali Jaamac sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah wafdidii ku weelanaysay wasiirkii hore wasaaradda biyaha Baasha Cali Jaamac socdaalkiisan Baasha Cali Jaamac horaad u soo aragteen muddadii yareedu xilka ka hayay xilka Soomaaliland ka hayay ugu yaraan waxa la ii sheegay anigu saa uma ogeene reer Ceergabo waxa ii sheegan ilaa 7 ceel iyo intaasoo dhaamin laga qoday oo maanta biyo laga cabo xalay miiriya waxaan ka maqlayay dad le Urbogays Muuse Biixi baa lagu wareejiyay waxa la yiri wax gunti xagala gal wax gunti la galiye ka weyn Urbogays wax alaab lagu wareejin kara cid maaha waa meel umadileedahay weeye waana satarkiina la yimi guuro weeyaan adeer halka waxa nala jooga dad ka soo digarogtay oo aad u fara badan kulmiye oo hadeer ka yimi aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa laala wixii ka soo digarogta iyo qofkii ka yimaada aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay Baasha Cali Jaamac oo dadka deegaanadaasi ugu baaqay inay doortaan xusbiga mucaaradka ee wadani sababta weyn ee wadani ugu soo wareegay waxa weeye axdiga halka la idin kula galay ayaa laga baxay wadani waxaan ka sidnaa inuu axdiga Urbogayseen ee laga baxay fulinayo ergaana laba habeen joogay odayaasheenii dhammaan ilaa 8 oday baanu shiray dhammaan waan u warramay sababaha aan uga tegay kulmiyada waan u sheegay waxay ila qaateen dhammaantood inaynu wadani nahay isbeddelkaynu taageeraynaa xisbigan kulmiye Ceergabada horaan ugu sheego ku tiigaali maayo laakiin ninka ballankii Urbogays ka baxay shirkii adduunyada dhamma arkaysay miyaa la aamini karaa Barkhad Maxamuud Gedi Bulsha TV wararka gobolka Sanaag